السلام الله عليكم soo dhawaada asxaabta qaliga ah ciid mubaarak dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad farxad iyo barwaaqo ku iideen dabcan asxaabta qaar waxay leeyihiin ustaadii ka warran suuqa dabcan iyo xaaladihiisa dabcan inkastoo aan shalay iyo maxaa la dhahaa maantaba aan inkastoo aan maanta rabo inaan xoogaa trade gareeyo laakiin shalay aanan wax trade aan eegin dabcan maadaama iska ahayd maalin holiday dabcan oo dhammaan yacni wadamada islaamka oo dhan laga ciidayay haddii aan suuqa dib ugu laabto dabcan lacagihii aan wada eegaynay dabcan waiting baa lagu jiraa dabcan oo weli lacaguhu isdiyaarin bay ku jiraan dabcan ma rabo inaan hadalka dheerayo dabcan inkastoo aan shalay yara dalxiis aaday oo chartii waxaas aan eegayay oo aan baxay aan nafta usoo raaxayo dabcan taagii suuqa dabcan xagga waxaad uga jeedaan lacagtii DXY DXY waxay carqalad weyn ku tahay lacagaha ay ku jiro doolarku dabcan iyadoo haddii lacagtani ay yacni aysan ku siin jiho waadixa yacni lacagaha kale aan eegayno sida maxaa la dhahaa goldiga NZD/USD AUD/USD dhammaan lacagahaas oo dhan dabcan iyaguna ma ay dhaqaaqayaan oo qaabka ay ugu jirto yacni maxaa la dhahaa structure xumada iyaguna ugu jirayaan waa sidaa sheegayna dabcan oo muhiimaddu waxa weeye yacni rulekaaga inaad ku dhaqanto lacagta haddaysan ku dhaqmayn means waa inay lacagtaas aad iska daysid dabcan halkan aan isbuucii dhawed ka falanqaynay lacagtan meeshaan aan ka falanqaynay dabcan halkan meeshaan ka falanqaynay meeshan maxay ku tagtay qaab impulsive correction ay ku tagtay haddana all the way maxaa dhacay in impulsive lagu dhaafay maxaa ka sugaynay correction dabaan ka sugaynay okay maxaa dhacay already inay samaysay structure inay samaysay oo trade lane-kii halkan saarnaa ay qaab structure ku tagtay haddaad overall-ka eegtid dabcan muhiimadda keliya waxa weeye overall structure-ka inaad eegi kartid lacagta maxaad meeshan uga jeedaa waxaad uga jeedaa hore waxaan u niri dabcan lacagtan in ay tegayso wax la dhaho expanding-kan structure-kan expanding-kan maxayna ku tagtay qaab correction so lacagtani waxay ku caddaynayaan in lacagaha USD-da ay ku jirto in ay fursad aad iyo aad muhiima ay heli doonaan bay ku tusaysaa waayo qaab structure lay ku tagtay saa'id yacni qurux badan haddaad eegtid waxaa laga yaabaa xitaa inay all the way soo taabato double topka kadibna all the way soo yacdo lacagta oo kumanaan pip ay soo dhacdo sidoo kale haddaan ku tuso wax yar forward time frame wuxuu all of yani dhammaan yani time frame waxay ku sheegayaan lacagtan in structurally yani qaab structurally ay isku dhisayso dabcan haddaad eegtid halkan pattern within pattern laba taabasho plus double top dabcan ma laga yaabaa inay soo dhacdo lacagtan of course waa laga yaabaa inay soo dhacdo oo ay jirada silkaas waa even a trailing kala taabanayso ama ninth rule kana soo buuxinayso kadibna markaas yani qaababkay ku timaado ama structurada ku timaado la eegayo kadibna all the way lacagta laga faa'iidaysan karayo okay haddii aan sidoo kale maxaa kaloo dhici kara waxaa kaloo dhici kara lacagtan haddii halkan aysan yacni qaab impulsive ku iman laga yaaba correction yar inay ku timaado kadibna all the way loo celiyo maxaa meesha ka dhacaya structure-kana ka dhacaya meeshan kadibna lasii socdo ilaa lasoo testicrane wax dhaho double top kaa kore iyadana lacag aad u qurux badan weeye asxaabta qaar waxay lahaayeen istaadii lacagtan yacni isdiyaar maxaa la dhahaa isku diyaarin aad u qurux badan ay ku jirtaa yes of course ha ku jirtaa sidoo kale waxay ku leeyihin istaadii ma ka qaadan karaynaa yani structure-kii hadda ku jirto no waayo ma aan hubo structure-kan in lasoo jebin doono xagga la iman doono laakiin yani caadi ahaanta markaan eegnay ruleska-ni waxay noo sheegayay lacagtan inay dhamaystiran tahay laakiin muhiimad waxa weeye halkan qaabkay ku timaado eeg haddii impulsive ku timaado minus correction dushiisa inay ku samayso tide ama steep kadibna all the way soo siinayso kadib lacagtan baad ka faa'iidaysan karaysaa lacagaha kale oo ay iyo yacni USD ku jirto waxaa laga yaabaa sidoo kale hadda qaabka u dhaqmayso in qaab janjeera qaab noocan oo kale ah inay ku timaado structure yar
kadibna loo kala celiyo oo lacagtaas all the way up loo siiyay iyadana ka taxadara AUDSD iyadana qaabkay ku jirta ujeedaan waxaad aragtaa in halkan aan isbuucin weyd ka falanqaynay qaabkii halkan ku timaado arag inaan baan nidhi three touchkii qaab haddaad eegtid waxa la dhaho inweynis waxay ku timi impulsive yar ay ku timi maxaa dhacay in yar la celiyey haddana oo qaab correction yani caadi ahaan 90% suuqan waa correction waxay kuu sheegaya lacagtan in future ay ku wajahan tahay lacagtani jihada abka ay ku wajahan okay taasna yani waxa ay cadaynaya correction kale ku jirto means yani selkan suuqa lagu wado waa sel lagu khasbayo oo yani ay ahayn sel dhaba aysan ahayn waayo haddii sel dhaba uu ahaan lahaa means fiiri haddii aan dib kugu laabto xir xaggan selka ku jira meeshan sel ku jira dabcan iyo selkan muxuu kala duwan yahay waa inaad garan karaysid wuxuu kala duwan yahay selkaas iyo selkan waxaa ku jira wax laho wax janjeera yani waxaa ku jira wax laho janjeer maxaa ku jira janjeer selkanna maxaa ku jira wax laho waa tight vertical one kana waxaa ku jira janjeer de kullama vertical uu noqdo suuqa waa kullama down direction kala sii aaday laakiin kullama uu noqdo wax laho inclined oo yani janjeer uu noqdo means yani awood yani sel ah ma jirto oo yani laakiin waa la khasbaya laakiin kan means yani buyerski waa laga awood batay oo sellerski waa ka awood batay kana means waa isleegyihiinoo yani hadda kor baa loo kaxaynaya hoos kor hoos kor hoos laakiin waxaa xoogaa awood badan leh marka la eego yani sellerska awood badan iyadana waa inaad fahmi karaysid yani yani secretka ka dambeeya waxaan okay maxaa laga sugayaa Gabriel Smithkay samaynayso xitaa haddaad eegtid waxa la dhaho maxaa la lahaa daily time frameka means waxay kuu sheegaya waxaan inaysan ahayn wax yani weyn wax structure ku socdo inuu yahay dabcan la celin doono lacagtan ama retrace xitaa even lagu samayn doono halo trailinkan xaggan iman karayso iyadana macquul in bartahay joogtay ka laaban karayso waayo waa flag yar ah ee meeshan ka dhacayaan okay iyadana macquul weeye okay dhammaan lacagahan USD ay ku jiraan dabcan waa jihas paya ka suga insha Allah sidoo kale lacagaha AUD-du ay ku jirto sida AUD CHF Euro AUD iyo weliba GBP AUD lacagahan gaadeen iyadana lacagahan waxaad ogaataa in ay ku yani uu ku jiro fursad sale oo aad u qurux badan dabcan dhammaan maasha Allah waan ku faraxsanahay in aan wada sugayno lacagahan waan rabno inaan haddii aad u badan profit aan ka sameeyo isbuucii dhawaad waxaan rajaynayaa inaad halkan aan ka falaqaynay lacagtan oo dabcan aan nidhi halkan dabcan in structurekan ay dhamaysan doonto dabcan ay dhamaysatay dabcan already ay soo dhacday laga rajaynayo in lacagtan sidoo kale ay sidoo kale maxaa meeshan ka dhici karaya waxaa dhici karaya in mortgage kor loo celiya dhici karaya oo trailinkan xitaa la cuno sida hadda loo cunay kale inkastoo weeks lagu cunay dabcan uu yahay volatility iyadana insha Allah jihada selka isku dayana wada faa'iidaystaan soo dhacdo correction ka dambe insha Allah iyadana waayo head and shoulder inverted meeshan laga yaabaa inuu ku jiro haddaad eegteed right shoulder left shoulder iyo right shoulder dabcan xagga ka samaysmaya iyadana isku daya sababaha keenaysana waxa waaye shalay yani correctiono badan baa dhacay so waxaad sababaysa waxa weeye in public holidayska ahayd dabcan oo xitaa even maanta lagu jiro public holiday dabcan iyadana lacagtan sidoo kale waxaan ka rajaynaynin halkan ay ka laabato dabcan meeshan ay ka laabato house baa lagu yimi correction damaa dhacay means iyadana yani waa laga yaabaa in wada eegeyseen falagan dambe means 80% suuquna correction 90% yani 20% na waa positive so waxaa laga yaabaa in lacagtan already double bottom kala sameyn kartaa triple bottom hoose la sameyn karaa kadib structure kala meesha laga sameyn karaa lagu kala celiyo means structure by structure buu ku dhiyo means waa inaad garan karaysid structure-ka markaas ku jiro so waxaa laga yaabaa sometimes fiiri suuqa waxaa dhaca sometimes waa inaan mar waliba isha ku haysto waxaa dhaca sometimes
adoo suuqan isle waxba ma samaynayo dabcan in uu korkaaga ku dhisto waxa la dhaho structure. kadib markii aad suuqan adoo ka maqan aad aragtid suuqan oo aad aragtid yani flat clear aad aragtid dhacay means yani markaad dul fadhiday chartiga wax kama aysan muuqan laakiin markii aad ka tagtay oo uu dhaqaaqay suuqii baad ogaatay in flat uu meeshan ka dhacay so taasna waxa wanaagsan inaad mar waliba aad forecasting samayn kartid forecasting wuxuu kuu saxaya waxa la dhaho in structure-kan meesha kasoo bixi doona aad oo EBC ogtahay sidoo kale euro AUD dana waxaa laga yaabaa in yani labada maalin ee nagu soo aadan inay dhaqaaqaan iyadana lacagtan xaggan aan ka sugaynay positive ku tagtay maxaa dhici karaya in structure-ka noocan ay samaynayso kadibna already ay soo dhici karayso dabcan lacagahan waa lacaga lawada sugayo dhammaan yani qof waliba oo forex trader ku jira forex trading ku jira dabcan waa lacag uu sugayo sababtoo ah waa meelo waxay joogaan waxa la dhaho pointiya oo yani qof waliba uu sugayo inuu ka faa'iidaysto iyadana had baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah waa inoo insha allah weekendiga